dhinacayga waxaa fadhiya haddeer Rashiid Diiriye Faarax oo ah wakiilka Khaatumo u qaabilsan arrimaha dibadda waa rugcada inta badan ka shaqeynayay sidii Khaatumo looga iibgeyn lahaa dalka dibaddiisa. Rashiid garabkaga ayuu fadhiyaa. Rashiid soo dhawow. ugu horreyn magaalada Muqdisho waxaa ka furmaya shir deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn looga tashanaya ayahooda. shirkaas sidaad u aragtaa maxaa ka soo bixi doona isleeda? Wallahi su'aashaas waa jeclahay waxaan halkaa u soo maray intaas oo diyaarad u soo raacay inaan ka qayb galo wada tashiga shirka ka dhacay magaalada Muqdisho ay isugu yimaadeen waxgaradkii odayaashii aqoon-yahanadii siyaasiyiintii dawladda ku jiray ay isugu yimaadeen laga tashanayo maxaa inoo dana haddaynu nahay shacbiga ku dhaqan gobolada SSC reer Khaatumo. waxa aan shirkaas ummadda reer Khaatumo aan u sheegayaa inuusan ahayn shir siyaasadeed. markaa shirkaasi waa shir wada tashiya oo go'aad u ah shirka gudaha ka dhici doona haddii alla ka dhimo. shirku maanta waa furmay si fiican jawi fiican buu ku furmay oo degan oo la ismaqlayo oo la isdhegeysanayo. ummadda reer Khaatumona waxaan u sheegayaa wax shirkaas ay anagu idin qarin maaye wax didmaa ilaa iyo hadda kama soo gaarin kama lagama hadal maanta. waa shirun war aayaheenna ummadda Soomaaliyeed see ula jaan qaadnaa haddaynu nahay reer Khaatumo. taana aad iyo aad inta ciidda soo qaban qaabisay shirkaba waxaan u rajeynayaa guul. waxaan idin sheegayaa shacbiga qurbo joog iyo godo joogba shirka maanta halka ka furmay ilaa iyo hadda inuu si wanaagsan u furmay. qolana aan loo war wax ay doonayaan ummadda Soomaaliyeed baan doonaynaa. ummadda Soomaaliyeed kaalinkii aan ku lahayn midnimada ummadda Soomaaliyeed dadka shacbiga halka ku dhaqan gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn oo laga dhigay wax la isku haysto oo labada maamul isku haystaan inaanu ka baxno oo aanu noqono dad la jaan qaada xuquuqda ay ku lahayn ummadda Soomaaliyeedna hela. taas ayaan ka rajeynayaa ummadda Soomaaliyeed inay garab nagu siiso. shirkaana maaha shir cid lagu dhibaataynayo cidna lagu soo dhaweynayo. ugu dambeyntii maxaad ugu baaqaysaa siyaasiyiinta deegaanadaas ka soo jeeda kuraasta ku matala baarlamaanka Soomaaliya iyo wasiirada ah? wallahi siyaasiyiinta ama waxgaradka ama guud ahaan ummadda reer Khaatumo ama ummadda Soomaaliyeedba gaar ahaan ummadda reer SSC kuwa ku jira maanta xildhibaanada ah kuwa wasiirada ah kuwa hamiga siyaasadeed la inay ku soo baxaan xildhibaanada soo socda. waxaan ka codsanaynaa anaga wadaan shacbigii ummadda Soomaaliyeed ee dawladnimada u helana in laga shaqeeyo kama dhex muuqano hadda 18 gobol kama dhex muuqano Soomaaliya inay ka shaqeeyaan guud ahaan midda koowaad ummadda Soomaaliyeed dawladnimada ay soo noqoto. gaar ahaan waa inaanu helnaa xildhibaano iyo wasiiro aayihii aanu ku lahayn ama qismigii aanu ku lahayn ummadda Soomaaliyeed noogu dooda xaq ayaga noo raadiya. ilaa iyo haddana waxaan sida ay wax u socdaan doorasho ayaa soo dhow. doorashadana waxaan rajeynaynaa insha Allah in ay si nabadgelyo oo xasiloon ay ku dhamaato. shacbiga reer Khaatumona ay ka qayb galaan doorashadaas isla markaana horena waa u taagnaayeen maantana waa u taagannahay in xildhibaanada la doono ay noqdaan kuwa marka hore midnimada ummadda Soomaaliyeed ka shaqeeya kuwa aan kuraasta buuxin. mar labaadkana waxaan ka codsanayaa waa inay noqdaan xildhibaano lagu kalsoon yahay. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta ku suganahay magaalada Muqdisho oo 30 sano ka hor ay ugu dambeysay imaatinka magaalada Muqdisho. wax badan baan doonayay inaan magaalada Muqdisho oo ah qalbigii caasimadda ummadda Soomaaliyeed inaan imaado. waan ku faraxsanahay inaan maanta ku suganahay ummadda Soomaaliyeed dal iyo dibadba. waxaan u rajeynayaa guul iyo gobonimo waana inay ku dhiiradaan in ay wadankooda u soo noqdaan. dawlad baa ka jirta amni baa ka jira. waan yaabay shalay markaan soo marayay inta u dhaxaysa hoteelkan degayo magaalada airportka sida ay dhalinyarada ummadda Soomaaliyeed ay heegan ugu yihiin inay wadankooda uu dawladnimada ay soo noqoto. ilaa iyo hadda 48 hours wax ka badan baan joogay ilaa iyo haddana dhagahaygu ma maqal xabad ka dhacaysa magaalada Muqdisho.